madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni markii uu magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland mudane Xasan Sharac Cabdi wuxuu bilaabay wasiirku sidii kor loogu qaadi lahaa kobcinta dakhliga dib u habaynta hanaanka maaliyadda biqaaminta kharashaadka iyo dardargelinta shaqooyinka wasaaradda maaliyadda si loo gaaro yoolasha wasaaradda maaliyadda muddadu hogaaminaya wasiir Xasan Sharac Cabdi wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland waxaa laga gungaaray kobcinta dakhliga gudaha biqaaminta kharashaadka adkaynta ku dhaqanka miisaaniyadda iyo dhimista kharashaadka aan daruuriga ahayn iyadoona meesha laga saaray kharashaadka aan mudnaanta lahayn miisaaniyadda xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxay ku guuleysatay inay kor u qaado miisaaniyadda dowladda Puntland iyadoona la kordhiyay boqolkiiba 46 miisaaniyadda dowladda saddexdii sano ee la soo dhaafay isla markaasna waxaa la sameeyay qorshayaal iyo nidaamyo kor loogu qaadayo dakhliga dowladda iyadoona la yaraynayo isdhinka miisaaniyadda waxaana la raacayay miisaaniyadda dowladda Puntland ee uu ansixiyay golaha baarlamaanka dowladda Puntland caqabadaha laga gudbay hareeyay miisaaniyadda dowladda Puntland sanadihii hore ku dhaqan la'aanta miisaaniyadda dowladda soo xarayn la'aanta dakhliga loogu talagalay bixinta kharashaadka aan munaasibka ahayn isku dhexyaaca kharashaadka dowladda markuu isbeddel siyaasadeed yimaado bixin la'aanta mushaaraadka shaqaalaha ciidamada iyo howl socodsiinta shaqaalaha dowladda iyo hay'adaha dowladda koror joogto ah oo lagu sameynayay shaqaalaha dowladda Puntland ciidamada adeega iyo gunooyinka mudnaansiinta kharashaadka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland waxay mudnaan kala siisay bixinta kharashaadka dowladda iyadoona meesha laga saaray dhammaan kharashaadka aan muhiimka ahayn wasaaraddu waxay mudnaanta koowaad siisay bixinta xuquuqaadka shaqaalaha dowladda midda ciidanka arrimaha amniga iyo horumarinta arrimaha bulshada kororka mushaaraadka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland waxay ku guuleysatay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda iyo ciidanka loo siyaadiyo mushaaraadkooda faahfaahinta kororka mushaaraadka waxaa caddeyn u ah shaxdan hoose ee darajada mushaaraadka xildhibaanku wuxuu markii hore qaadan jiray lacag dhan 1449 hadda wuxuu qaataa 2500 waxaana la kordhiyay boqolkiiba 73 wasiirku wuxuu hore u qaadan jiray $1,000 hadda wuxuu qaataa $3,000 waxaana la kordhiyay boqolkiiba 200 agaasimaha guud wuxuu qaadan jiray $500 hadda wuxuu qaataa $800 waxaana la kordhiyay boqolkiiba 60 agaasimo waaxeedku wuxuu qaadan jiray $82 hadda wuxuu qaataa $350 waxaana la kordhiyay 327 boqolkiiba madax qaybeedku wuxuu hore u qaadan jiray $63 hadda wuxuu qaataa $250 waxaana la kordhiyay boqolkiiba 297 madax farac wuxuu hore u qaadan jiray $56 hadda wuxuu qaataa $130 waxaana la kordhiyay 132 boqolkiiba madax xubin hore wuxuu u qaadan jiray $44 hadda wuxuu qaataa $110 waxaana la kordhiyay 150 boqolkiiba adeeg waardiye wuxuu hore u ahaan jiray $33 hadda waxa weeye $100 waxaana la kordhiyay 203 boqolkiiba ciidamada mushaarka askarigu wuxuu hore u ahaan jiray $80 hadda waxa la gaarsiiyay $200 waxaana la kordhiyay 150 boqolkiiba raashinka askarigu wuxuu hore u ahaan jiray $30 hadda waxa la gaarsiiyay $38 waxaana la kordhiyay boqolkiiba 27 kororka iyo kobaca dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland waxa uu soo xaroodaa boqolkiiba 90 ku talagalka dakhliga ee miisaaniyadda halka isdhinka la gaarsiiyay boqolkiiba 10 ama wax ka yar sanadadii 2019 ilaa 2021 taasoo sabab u ah dadaalka ay sameeyeen madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland mahadcelinta cashuur bixiyaasha wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ee uu hogaamiyay wasiir Xasan Sharac Cabdi waxay si weyn ugu mahadcelinaysaa cashuur bixiyaasha kala duwan ee sida wanaagsan u bixiya cashuuraadkooda waxayna u ballan qaadaysaa bulshada in cashuurta ay bixiyaan loo maamulo hab waafaqsan nidaamka dowladnimada muwaadin mar kale waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad dowladda ku garab istaagtay xaqiijinta dhismayaasha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda Puntland mushaaraadka hagaagay intii hore laga siyaashay shuruucdiyo heerarkeeda habka la baray dastuurka mushaaraadka hagaagay intii hore laga siyaashay shuruucdiyo heerarkeeda habka la baray dastuurka